Take this outside, man. Take it outside. Soo dhawaada asxaabta qaaliga ah Grassy Channel. Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee uu soo gaaray muuqaalkan, fadlan channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo, like inoo saar, share waa inoo dhiirigelin si aan u helno asxaab sida adiga oo kale u qiimo badan. Sidaan wada ognahay, maalmihii la soo dhaafay waxaa social media aad u haystay arrin dadka Soomaaliyeed aad ugu cusbayd oo uu la yimid wiil Soomaaliyeed oo ka tirsanaa YouTube-leyda oo lagu magacaabo Ridwan. Arrintaas oo ahayd in qofka loo waco jacaylkiisa si uu u kala ogaado in uu daacad u yahay iyo in kale. Arrintaas dadka qaar waa ku guuleysanayeen, dad kale oo badan khiyaano ayaa lagu qabanayay. Haddaba barnaamijka aan nii wado maanta kaasi waa ka gedisan yahay. Barnaamijkan waxaa soo abaabulay group cameraman ah iyo wariyaal isugu jira, iyaga oo ku ogaanaya dadka isjecel ee iskhiyaamaya, sida dadka isqaba iyo dadka saaxiibada ah. Markaan saaxiibku leeyahay, micnaheedu waxa weeye sidaan wada ognahay magaaladu waxa ay yaqaaniin dhaqan ah inta aan la isguursan in ay wiilka iyo gabadhu saaxiib noqdaan, yacni girlfriend iyo boyfriend, oo ay hal guri ku wada noolaadaan, halkaas ku wada ilmo dhalaan, halkaas markaas ay isfahmaanna ay isguursadaan, haddii kalena ay ku kala tagaan. Annaga diinteena Islaamka ah dhaqankaasi waa inagama mamnuucday oo waa inaga xaaraan, balse iyaga dhankooda waa ka caadi. Inta aanan mawduuca u gudagelin, daawade aan ku su'aale, maxay kaaga dhignaan lahayd saaxiibka ama saaxiibtaa oo reerkaagii ama jacaylkaagii kuu dabamara? Fadlan jawaabta commentiga inoogu reeb. Haddaba mawduucayna aan u gudagalne, barnaamijkeena maanta waxa uu ku wajahan yahay ninkan lagu magacaabo JT oo uu saaxiibkii ruma ah ama best friendigiisa oo khiyaamay, kaasoo lagu magacaabo Brayden, una dabamaray isaga saaxiibtiis oo lagu magacaabo Sheila. Haddaba kooxdan waxay u yimaadeen JT, waxa ayna rabaan in ay u caddeeyaan khiyaamada uu kula kacay saaxiibkiis. Waxa ay tusayaan cadeymo ay ka duubayeen oo iyaga oo la daba taagan kaamirada qarsoon. Haddaba baaritaanku waxa uu ku bilaabanayaa Sheila oo gaariga guriga u hor istaagay. Sidaa wada aragtaan, gaariga waxaa wata JT saaxiibkiis. JT waxaa la weydiiyey in uu yaqaano gaarigan ama uu horey u arkay. Isagana waxa uu ugu jawaabay in uu si fiican gaariga u garanayo, uuna yahay gaariga saaxiibkiis. Kadib waxa ay aadeen dhankaasi suuqa. Marka ay soo adeegteenna waxa uu ku soo celiyey gurigeeda, wakaas iyadoo gaarigii ka dagaysa. Haddana waxa ay tuseen maalintaas maalintii xigtay, isla gaarigii ayaa u yimid, waxayna aadeen dhankaasi magaalka si ay jawi ugu soo qaataan. Markaan waa iyaga oo gaarigii meel ku baakin garaystay. Waxa ay kaamiradu qabatay wejiga saaxiibkiis JT. Ninkaas ma garan ayaa lagu yiri, balse marka uu wejigiisa arkay aad ayuu uga xumaaday. Waxa uu markale ninkii ku celiyey, soo ninkaas saaxiibka ma ahan? Waxa uu nagu jawaabay, haa waa isagii. Alla maxaa ka xun, saaxiibkaagii nolosha oo ku khiyaamaya. Isla maalintaas laftigeeda JT ayaa soo wacay Sheila iyada oo la joogtay saaxiibkiis. Waxa uuna u sheegay in uu rabo in ay wada kulmaan oo ay qado wada aadaan, balse way ka diiday oo waxa ay ku tiri waxa aan joogaa meeshii xanaanada carruurta, halkaas oo ay ka shaqayso. Sidaasayna isku dhaafisay. Laakiin raggan ayaa wax kasta duubayay, isagiina farta ayay ka saareen oo waaba u qaadan la'yahay inuu saaxiibkiisa qaaliga ah khiyaamayo. Laakiin adduun wax kasta ka suurooba. Kadib waa ay ka soo noqdeen oo waxa ay aadeen hotel. Nimankan waxa ay doonayaan in ay ku dulgeeyaan iyaga oo hotelka wada jooga. Isla xilligaas waxa ay soo kaxeeyeen JT. Ninkan waxa uu u sheegayaa JT in uu isdejiyo, uusan wax dagaal ah uusan samayn. Laakiin JT waxaasba uma jeedo, caro ayaa maskaxdiisa daba martay. Markaan hotelkii ayay soo gaareen, waxaana dad iyo kaamira ah waxaa la doonayaa in goobta loogu tago. Alla waxna fadeexeen, ceeb weyna. Waxaa loo sheegay in ay ku jiraan qolka 117, isaga ayayna ku sii socdaan. Waa kaas isaga oo qolkiisa ku garaacaya, la furiyey, wakaas ku booday caro dartiis saaxiibkiis. Nimankan security-ga ah waxa ay shaqadoodu tahay in ay marka uu meesha qalalaase ka dhasho in ay kala celiyaan dadka isdagaalaya.
meesha mawar baa yaalahe ceeb iyo fadeexad baa ka dhacday. Sidaad aragtaanba wariyaha ayaa waxa uu weydiiyey waxa ku kalifay Sheila in ay khiyaanto saaxiibkeed oo ay 3 sano wada socdeen. Iyadana waxa ay ugu jawaabtay waqti ima siiyo 24 hours waa uu shaqaynayaa. Saasaana igu kaliftay inaan saaxiibkiisa la xiriiro maxaa yeelay isagaa waqti ii helaya. Markaan waa ay kasoo laabteen. JT ayaa la weydiiyey maxaa kuu qorshaysan, isaga oo niyad jab ka muuqdo ayuu leeyahay waxa aan rabaa inaan shaqadayda hore u sii wato, mana rabo in aan arko waxaan oo mar kale dib iigu dhacaya. Daawada adiga maxay kula tahay, bal ninkan miyaa khaldan mise naagta? Fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like inoo saar, sheertaada waa inoo dhiirigelin, channelka subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelino. Mahadsanidin.